مسؤولين تكلدوان كسوق بش مناسبة عن اللي رجع للجبنة بعد الصحافة يمرت شرف تكلدوان فعنكم السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم سلام كديم وحن مركو رحم بليو يبقى قاعدين الدريا اللي رجع قويها بنتا كقل الجبية ما أنت معك كسوق الصحافة الصومالية صومالي جورناليزم كله وحن الله يا هاي همبليو يسلام كديم waxaan rabaa inaan laba qodob dul istaago labada qodob oo kala ah saxaafiga aqoonta leh waxa looga muhiimad u leeyahay bulshada iyo waxa layna ka rabo dhamaanteen maadaama aynu nahay dad aqoon iyo tacliin baranaya runtii waa ku faraxsanahay dhalinyaro badan oo maanta halka ka qalin-jabinaysa wajiyadooda aan garanayo kuwa macallimiina kuwa jaamacadaha dhigta kuwa mehnada saxaafadda ku jira inay ka qalin-jabiyaan macadka saxaafadda Soomaaliyeed ee Somali Journalism College runtii waxaan u arkaa inay tahay maanta halkii Soomaalidu la oran jiray Soomaalidu ma laha wariyaal aqoon-yahanina maanta waxaan maqraanti iyo maragba ka ahay dhalinyarada halka fadhiya ee ka qalin-jabinaysa inay dhamaantood yihiin dad heer jaamacadeed iyo dad ka sareeya waana ifafaala cusub oo saxaafadda Soomaaliyeed iyo dhammaan horumarka Soomaaliyeedba qayb ka noqonaya waxayna kula dardaarmayaa dhamaantiin inaad qaadaanin maanta wax halka ku barateen aad nageysanin meelaha ka timaadeen waxayna kaga digayaa inaad noqotaanin wariye ku shaqeeyo waxa daily maalmeedkiisu yahay ama wariye raadiya waxyaalaha uu maalinkii ka fakarayo laakiin waxa la rabaa inaad noqotid wariye ka fakaraya horumarka dalka diinta iyo dalka wasciidid hadaayo wuxuu yiri February farnaajoonay anaguna waxaan leenahay February hadaan farnaajoonay anagoo farnaajeysan ba si khawroonay Soomaaliya maanta waxa saadhay wadada guusha bay cagta saadhay waxaan rabaa dhamaantiin inaa message qaadaanin inaa ka noqotaanin horumarka Soomaaliya meesha ku jiro maanta awoodda koowaad cududda koowaad waa dhalinyarada halka fadhiya cid wadankan marti maanta uga matiidin saxafigu waa qofka ka qayb qaadan kara horumarka dalka inta kadib runtii marka dalka ku soo noqday waxaan asaasay barnaamij la yiraahdo ku celi waxa baratay dhulkaaga hooyo oo dhamaantiin aad garanaysaa dhamaantiin aad qayb ka tihiin waxaan maanta farxadii ah macadka saxaafadda Soomaaliyeed inuu qayb ka yahay inay mataana yihiin barnaamijka ku celi waxa baratay dhulkaaga hooyo waxaan kula dardaarmayaa inaad qaadaanin message-ka ah wixii aan baranay inaynu taynu qaadno dalkeena dib ku celino waxaan iska daynaynaa oo aynu ka dheeraanaynaa inaynu hay'ad wax ka sugno inaynu dal shay wax ka sugno 27 sano in ka badan baynu waxaynu ku jirnaa burbur waxa eegtaanin dadka inaan la eeg jilalka inaan la eeg ee ku nool dunida kale runtii waa wax laga xumaado maanta inaynu noqono in la ku tilmaamo wadanka adduunka ugu hooseeya wadanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan iyo wadanka adduunka ugu liita laakiin taas inaynu ka dhidhiino oo aynu bedelo inaynu dalkeena dib u dhisno kana qayb qaadano horumarkiina ma ballan qaadaysan Soomaaliya runtii waxaanu ku bogaadinayaa dhamaantiin inaynu noqono kuwa u shaqeeya dhanka wadaniyada wariyuhu ma aha qofka ku soo caanbaha wax xun waxa arkaysaan in wariyaal badana waxa ku raadiyaan ama credit ku raadiyaan inay ku helaan waxyaalo aan sumcad ahayn laakiin waxa noqotaa wariyaha ku soo caanbaha wariyaha u dadaala dadkiisa iyo dirkiisa wariyaha ku soo caanbaha waxa ay bulshadiisu rabto waxa rabaa dhagaha bulshada inay gaarsiisaan wax fiican runtii shacabkanu maanta waxay maqlayeen waxay ka daaleen colaad iyo dhibaato iyo wuxuu loo sheego mid ka mid ah idaacadahan maalin dhow dhageysanayaan oo guriga jooga markaas qodobada warka markii la dul maray ba qodobadii waxa ka mid ahaa iskuulaha la furay madaxweynaha halka tagay mashaariic horumarineed la furay qofkii yar la dhageysanayay ba wuxuu dimay raadiye warka maxaa nooga dimisay waan ku yiri maanta warba ma jiro wiil oo maxaa warka u taqaanaa ku hordiisa maanta dagaal iyo meel wax ka dhacay laba reer oo isdagaashay madax isla gashay waxba ma sheegin oo ma waxaan u naqaanaa ma warkaas inuu naqaanaa warku waa warka wanaagsan bulshadeena aynu ku jahayno inay qaado wadada ah inaynu wax wanaagsan dhagooda u sheegno inaynu wax wanaagsan ku tusaalano dhamaanteen aynu u midoono jahaynta iyo ka qayb qaadashada iyo horumarinta dalkeena maanta waxaanu haysanaa fursad SYL waxay ahaayeen 13 wiil waxa maanta inagu haysana ma haysan maanta internetkii baa haysta aqoontii baa haysta wax kasta lagu garadar dollar baa lagu soo siiyaa suuxi misana ma fakaraysid fikradaadana ma gaarsiisana ina maanta wax soo saartid noqo SYL labaad ay taariikhdu qori doonto kana qayb qaado horumarka dalkaaga dhamaantiin waynu ku dheereeyay hadalka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum taala